إذن أيها الأحبة taladu waxa weeyaan ilaahayna abuuray baa yaqaana naftani waxay ku islaaxayso isagaa abuuray isagaana garanaya waxay ku islaaxayso wixii ay ku islaaxaysayna rususha laynoogu soo dhiibay rusushuna waxayna bareen inaynu rabbigeena caabudno qof bini'aadam oo qumman oo toosan noqonno si aynu natiijada wanaagsan aakhire u heli karno adduunkanna waxaa laynoo sheegay inuu imtixaan yahay wixii laynagu itixaamo inaynu ama ku sabirno ama ku mahadnaqno haddii caafimaad lagu siiyo inaad mahadnaqdid haddaad xanuunsatidna inaad sabirtid hadday noloshu sidaa noqoto way fududaanaysaa dhadhan iyo macaanna way yeelanaysaa waayo tumaniinatulqalb qofku hadduu helo iyo ilaahay raalli ahaanshihiisa wax ka maqani ma jiraan walidaalika baa culammadii waaweynaan rag ka mida ibraahiim ibnuladham baa waxaa laga sheegay waxaa la yidhi jeex roodhiyo qallalan ayuu webiga furaad darsaday roodhi qallalan hadda qiyaas ayuu webiga darsaday markaasuu goostay nimcadaannu hayna hadday boqortooyadu ogtay buu yidhi waynugula diriri lahay ninkaasi roodhi engegan buu adduunka sitaa wuxuu ku iidaantayna waa biyo meel maraya webiguu daraya si uu u raamin karo waxaanu leeyahay low calamat ilmuluuk hadday ogaan lahaayeen boqorradu waxaannu nimco hayno way nugula dagaalami lahaayeen waayo ninkani tumaniinatulqalbi buu hayey ilaahay buu rumeeyey caabuday ku kalsoonaaday noloshuu u arkayey waxa ay tahay dhadhankeeduu garanayey nolosha hadafka laga rabuu garanayey sidaa awgeed bay u fududaydee u arkayeen nin cala tariiqa jidkii saxaha haya inuu yahay idan waxa kaa maqan maaha waxa qofka ka farxiyaya waa waxa kugu jira iyo waxa aad dareemayso iyo sidaaad u fakarayso iyo waxa hammigaa ku haya kaas baa qofka ah waxa farxad geliya waxaan ku soo koobaya warka markaa in madaxweyne la noqdaa guul maaha ee waa mas-uuliyaad la kororsaday in lacag badan la helaa guul maaha ee waa mas-uuliyaad la kororsaday in magac weyn la helaa guul maaha waa mas-uuliyaad la kororsaday laakiin ama madaxweyne ahaw ama taajir ahaw ama magac lahaw ama miskiin ahaw inaad ilaahay raalli gelisaabaa guula idan qof waliba wuu guulaysan karaa bimaa cindahu min imkaaniyaat buu ku guulaysan karaa waxaad haysataa intuu leeg yahay haddaad madaxweyne cadaalad iyo diin iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo wanaag wada waad guulaysan kartaa alimaamu alcaadil 7 jannada carshuraxmaan harsanayuu ka mid yahay haddaad nin dhallinyara oo dhowrsoonoo akhlaaq leh waad guulaysan kartaa shaabun nasha'a fii cibaadatillaah waad guulaysan kartaa haddaad qof yacnii mustawaha nololeed ee aad joogto guushu markaa kuma xidhna adduunka inta kaa soo gaadhay magac iyo maamuus iyo hantina guushu kuma xidhna waad kadeednaan kartaa adigoo madaxweyne ah waad kadeednaan kartaa adigoo taajir ah waad kadeednaan kartaa adoo magac iyo maamuus leh waanaad kadeednaan kartaa adigoo faqiir ah intaba kadeedku wuu la socon karaa guushuna way la socon kartaa idan guushiiyo kadeedku ama guushiiyo guuldarradu kuma xidhna waxa gacantaada ku jira iyo magac iyo maamuuska aad leedahay inta uu leegya kuma xidhna kaa kuma xidhna waxa uu ku xidhan yahay inta aad rabbigaa xidhiidh la leedahay inta aad nolosha macnaheeda fahmayso inta aad garanaysa maxaad u nooshahay qof hadduu maanta dhaqaaqo socdaal galo meel uu socdaana aanay jirin se uu yidhaahdo mar qudha nasan maayo ow daalo muxuu kororhsaday waxba mu kororhsan soo maa laakiin haddaad hadaf leeday haddaad rabto inaad berbere gaadho waa hadaf la garanaya mar umaad gaadhi doontaa waa hadaf muxaddada nolosha haddaad hadaf dhaba ka yeelan weydo 60 sane ama 70 sane lagu siiyey way dhammaanaysaaye haddaad hadaf ka yeelan weydo oo ah inaad rabbiga raalli geliso jannana raadacaysatid naarna ka badbaadid hadafkaa haddaad xaqiijin kari weydo noloshu qiimo ma leh wax kastoo agtaada yaallana qiimo ma leh waad kadeedanta inta kadeedan baad ku jirtaa haddaad intaa fahamtana inta guulaysataad ku jirtaa
walow aqoontaadu ha yaraato tusaalaan idin siin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya xadiidka bukhaari ayaa nin soo maray qoladii la fadhido yidhi oo bal ninkaa ka warrama waxay idhaahdeen waa nin hadduu gabadh ku weydiisto waa nin gabadh la siiyaa bay idhaahdeen hadduu shafeec erga kuugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbalo hadduu hadlana waa nin la dhegaysta bay idhaahdeen mudan in la dhegaysto yacni bini aadamku wuxuu wax ku qiimayn jiray haddii gabadh lagaa soo doontana waa nin dumarka la siiyo hadduu danka ha yeesho shafeeca kuugu yimaadana waa nin magacio ergadiisa la aqbali karo hadduu hadlayana waa nin la dhegaysan karo nebigu wuu iska aamusay ma comment garaynin mid kalaa soo maray markaasuu yidhi kaa ka warrama markaasay idhaahdeen hadduu gabadh ku weydiistana mid loo guuriyo maaha hadduu erga kuugu yimaadana ergadiisa ku la aqbalo maaha hadduu hadlana ku la dhegaysta maaha bay idhahdeen yacni nebigu wuxuu barayaa saxaabada mawaasiinta maxaa wax lagu qiimeeya bini aadamka see loo qiimeeya dabeetana wuxuu yidhi lamil'u haada min daak kaa hore iyagu lahaayeen waa wax walba wuu yahay dhulka muggiioo kaasa ninkan baa iskaga khayr badan buu nebigu yidhi waa hal nin iyo dhulka muggiioo kii kale ah maxaa halkan nin iyo dhulka muggii isweydaariyey waxa isweydaariyey mawaasiinta wax lagu qiimaynaya kala nooc ahaa waayo dhulka muggiioo naar ku sii socda geeddi naareed ah faa'iida ma leh xabad jannada u sii socotaa dhaanto soo maaha hal qof xagga jannada u socda iyo dhulka muggiiyo xagga naarta u guuraya dee faa'iida ma leh walidaalika buu nebigu wuxuu leeyahay dhulka muggii oo kaasa qof quroo kaasaa dhaama ayuha alaxibba waxaa dhibtu inaga haysataa waxa weeyaan dadka mawaasiintii baa laga qalbay wixii ay wax ku qiimayn lahaayeen waxay wax ku qiimayn lahaayeen baa waxa laga dhigay wax bini aadamku ka qiimo badnaa gaadhi iyo daar iyo waxaas maaha wax lagu qiimayo qofkii mise daarood buu leeyahay qiimihiisu maaha mise gaadhuu wataana qiimihiisu maaha gaadhiguu wataa noocuu yahayna qiimihiisu maaha qofku intuu rabbigii ku xidhan yahay u dhow yahay buu qiimihiisa dhabtahay taasun baana aakhiro marka la isugu yimaado wax anfacda adduunka inta la joogana kadeedka qofka ka biisa ilaa adduunka adoo waxaystaad kadeedan tahay haddaanad deganayn